waxaanu maqlaynaa hadallo ka soo yeedhaya mas'uuliyiin saddexda xusbiba ah waxaanu leenahay haddaanu nahay dhaqankii gobolka Sool anigoo afkooda ku hadlaya dalkani maanta waa nabadgelyo doorasho una wuu galay komishinka waxaanu leenahay idinka dadkan mas'uuliyadeeda leedin dhiibay haddaanu dhaqanka nahayna dushaanu idinka ilaalinaynaa oo dushaanu idinka eegaynaa sidii wanaagsaneyd ee doorashada loo galay waa in wanaag ay ku dhamaataa saddexda musharaxna waxaan leeyahay musabixi waxaan leeyahay haddii laga helo waa inaad Cirre iyo Faysal Cawraado aad u hambaliyeysaa Cirrena haddii laga helo waxaan leenahay waa inaad Muuse iyo Faysal aad u hambaliyeysaa Faysal haddii laga helo waxaan doonaynaa inuu Muuse iyo Cirre u hambaliyeeyo dadkana dad wada dhashay weeye Soomaaliland maanta dhibaato iyo buuq iyo qaylo kama ogolin waliba waxaan la sii hadlayaa beelaha dhexe ama isaaq baan la hadlayaa haddii Soomaaliland markii hore idinku aad iska wadateen maanta haddaanu hartinahay waanu soo galnay siyaasadii waxbaanu ku leenahay doorashadii waa galnay haddaad hore isugu diri jirteen ama isu qabsan jirteen maanta ma ogolin intaa in la eego dhibaatada Soomaaliland kama ogolin waxaan leenahay jidada ha lagu qanaco go'aanka ha lagu qanaco waxa weeye ha la isugu hambaliyeeyo cidii guuleysatayna si wanaagsan ha loo qanciyo komishinka saasaan leenahay haddaanu hartinahayna maanta dalka Soomaaliland in dhibaato ay ka dhacdo raali kama nihin mana aqbalayno umana dulqaadanayno taana waxaanu furaynaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan gudaha dibadba nabadgelyada Soomaaliland ku soo caaniyo nabad maashay waa in la adkeeyaa waa in waxa weeye buuqa iyo qayrada la joojiyaa waa in go'aanka komishinka la sugaa salaadiintana waxaan leeyahay xil weyn baa ina saaran waa in aynu dalka nabadgelyadiisa iyo isku xinaantiisa iyo horumarkiisa ka shaqeynaa intaasaan shir jiraayad maanta u qabtay waxaan leeyahay mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad go'aanka hal la sugo wixii jira komishinku waa inay si degan oo wanaagsan dadka ay u qanciyaan mas'uuliyiinta ee xusbiyada ah xabadna kama ogolin dalkan dhibaatana kama ogolin waliba haddaanu hartinahay mar saddexaad baan ku celinayaa maanta waynu isugu soo galnay dalka waxbaynu ku wada leenahay haddaanu horey ka maqlay maanta waxa weeye siyaasadii iyo awoodii iyo dhaqankiiba intaba waa ku joognaa ma aqbalayno idinka aqbalmayno isaaqo ay burco intii ku dhimatay ilaahay qofkii ku dhintay naxariista jannaha siiyo intii dhaawactay ilaahay ha boogadhayo dib intaa ka badan raali kama nihin intaana waa u tacsiinay eheladii iyo qaraabadii ka gurooday ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadgelyada ha la ilaaliyo